daawadayaal kana waa tusaale kale aan u baahannahay fraction la mid ah inaan qorno. kana waa mid kale. labadan fraction way kala duwan yihiin haddii aad u fiirsato. waxay ku kala duwan yihiin kan numberkiisa soo hore ayaa weyn, kanna numberkiisa hore ayaa yar oo kiisa dambe ayaa weyn. sidaa darteed waxaan u baahannahay in aan qorno fractionkan wixii la mid ahaa oo kan hooseyihiisu yahay 6. see baan ku heli karnaa? waxaanu ku heli karnaa haddii number aan u qaybino numberkan na siin kara 6. number markaan u qaybino kan na siin kara 6 waan u baahannahay. okay, markaan u qaybino 12 number na siin kara 6 muxuu yahay? simple waa 2. markaan 12 u qaybino 6 buu na siin karaa. sidaa darteed halkan waa okay. korna waa inaan u qaybino numberkii aan hoos u qaybinay si aan ku helno kaas wuxuu yahay 10 marka loo qaybiyo 2 waa 5. sidaa darteed fractionkeena halkan la mid noqonaya midkan wuxuu noqonayaa 5/6. 5 loo qaybiyo 6 sidaas ayuu noqonayaa kaas. numberku markuu weyn yahay kan uu yar yahay u qaybinaya isticmaalaysaa numberkaaga numberka u qaybsamaya oo kan ku siin kara ayaad u qaybinaysaa, kadib ka korona waad u qaybinaysaa. markaas ayaad ogaanaysaa numberkan wuxuu yahay. aan fiirino kan markuu numberka hore yar yahay. hooseeyaheenu waa 4 halkaanna waa 8. sidaa darteed kan ayaa yar. waxaan u baahannahay inaan badino numberkan oo aan ku dhufano numberka marka lagu dhufto numberkan na siin kara 8 waa maxay? waa 2. 4 marka lagu dhufto 2 waa 8. sidaa darteed si aan u ogaano kanna waxaan ku dhufanaynaa 2. halkan marka waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 6. fractionkan wuxuu u dhigmaa kan waa isku mid, waa asagiyo badan iyo asagiyo reduce gareeyay. sidaa darteed marka aad rabto numberka uu kaa maqan yahay waa inaad fiirisaa kan iyo kan hadduu badan yahay waad u qaybinaysaa, hadduu kanu sida kan uu yahay uu yar yahayna waad ku dhufanaysaa. 3/4 waxay la mid tahay 6/8 laakiin waa la reduce gareyn karaa kan haddaa usii baahato oo waxaan dhigi karnaa 2 u qayb ileen kulli 2 u wada qaybsanta. 2 marka loo qaybiyo halkan waxay noqonaysaa 3. 2 u qaybi 4. waa kaas saas ayay ku mid tahay.